الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. آمين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. آمين. arrimaheena khayr allah ka dhigo aamiin ugaaskeena ugaas jira allah ka dhigo aamiin ummadeena ummad jirta allah ka dhigo aamiin ummad diinta islaamka ku dhaqanta allah ka dhigo aamiin ummadii quraanka allah ka dhigo aamiin ummatu muhammad dhaba allah ka dhigo aamiin ilaahu wixii naga qalocda noo soo toos aamiin wixii naga halaaba noo hanuuni aamiin ya rabbal alamin aamiin saaqada ilaahu noo barakee aamiin kuwii istaba socda allah naga dhigo wixii hore cafi baan nidhi wixii hore cafi baan nidhi wixii hore cafi baan nidhi wixii dambana ilaahay أصلح بانيري إلهنا أصلح بانيري إله أصلح بانيري ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كويس كتلقات الله ينقدم كويس مغلا الله ينقدم كويس احترام الله ينقدم كويس حرمية الله ينقدم ما أنت إلهي أرلدي نهيدنا تمكينسي قل كأن الله نوديبو إله علول من النقدك إله علول من النقدك إله عد من النجدك إله أمد من النجدك يا رب العالمين يا رب العالمين يحبك إله النعاف يحبك إله النعاف وحد أنت إله النحريس قولك مصلح إله النجسي إرك إله مدر نجسي إله سيد النوير إله مدر حمان نحي نو نحريس إله الدعاء يدا نو أغبر يا رب العالمين وبس كيد القاضي وضياش هذا كويد القاضي كويس براروجية كويس توسية الله ينجدكم دولة خير كذا الله ينسيه دولة خير كذا الله ينسيه وحن كعطنا إنه يشوا وحن كدونا كهلو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إله النبض بان كويديسن إله النبض بان كويديسن عندنا حمان وما هينو نبض بان كويديسن حق سريع حق وصب النبض عري قلب النبض بان كويديسن إله سيدنا نويل صلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتحة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آدي أدود مع سنتين لما أنتي نوائد السلامية برشدة كسر قيب قشي شركا وحال لو دوكسوي هاي إن معلمه قدام بيسي بيش غرغوري أي كل هاي شر مقالة هورسو أو حرنتي لغو أساسي دولة الديغان كسومالي دا أهنا حدونتا بلوين تغرغوري معلمه قدام بيي وحيريركو كودا هادليين sidii midnimo iyo muwaafaqo loo sameyn lahaa daldalooyin hadday jiraan loo turxaan bixin lahaa sidoo kale qabaa'ilada iyo qowmiyadaha deriska aan nabad loogula noolaan lahaa qodobka saddexaad soo raaca kulley wuxuu ahaa intaan xasuusto sidii xuquuqda ku maqan laamaha dawladda loo heli lahaa arrintaasina waxay ku soo dhamaatay si guula oo aad iyo aad u wanaagsan shirkan waxaa ka soo qayb galay dhammaan haldoorka beesha gurgure sida madaxda dhaqanka waxgaradka culimada diinka bulshada dhalinyarada bulshada qaybaheeda kala duwan waxa xusid mudan sidoo kale in ay dadkan isaga kala yimaadeen degmada Balawa ee ka tirsan ismaamulka Dirdhaba ee dhanka bari oo jirta 80 kilomitir sidoo kale tuulada ama qabalaha Hulaabora oo isaguna 70 kilomitir u jira magaalada Dirdhaba intaasoo kilomitir oo ku dhawaad 150 kilomitir dad iska kala yimid aad u tiro badan ayaa maalmihii u dambeeyay Huurso oo ah xaruntii lagu aasaasay dawladda deegaanka Soomaalida ee maanta jirta ayuu shirkaasi uga socday insha Allahu kariimna waxaan rajaynaynaa turxaamihii waa la dhameystiray waxa loo gudbaayay inuu noqdo xuquuqaha maqan sidii loo heli lahaa dadyoga deriska ah dhinac walbana nabad iyo wadajir iyo wanaag iyo isjacayl loogula noolaan lahaa sidoo kale beeshani waa beel nabadeed ma aha waa dad wax weeyaan ma aha dad macnaha dad dhibaatooyin ma aha marka intaas oo dhanna waxa xuquuqda lagu waayay waa iyada oo tanaasul iyo maxaydanay arrintaasi macnaha ay ku timid laakiin maanta reerku wuxuu isla go'aansaday xuquuqda maqan sidii loo heli lahaa sidoo kale waxa xusid mudan shirkan waxa hogaaminayay oo daadihinayay ugaaska guud ee beesha gurgure ugaasiya Daawud Cumar Geelle oo ah kan ugu faca weyn saldanada ugu faca weyn
guud ahaan geyiga soomaalida waxa weeyaan ugaasiyaad daa'uud waa ugaasii 54 beesha gurgure weeye taas waxay caddaynaysaa gurgure inuu yahay dadka ugu qadiimisan ama faracyada ugu fog marka waxaan leenahay meelo badan oo ku suntanaa baa jirtay gurgure oo intii aynan TPLF imanin gurgura warada iyo ciisana gurgura awraajaba way jireen laakiin maanta midna ma jiraan waxaan rajaynaynaa insha Allahu alkariim maanta xisbiga dalka ka taliya BB oo ah mid ka midnimada iyo muwaafaqada iyo waxa weeye dadyo badan oo maxaydan xisbiga TPLF ama ay hoos u dhigeen maanta inay xuquuqdooda heli doonaan insha Allahu alkariim meel kasta oo ay xuquuqdaasi taalo waa laga raadinayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرميهني سعودالكي أنكسو جري يرمي أنكسو دح جري باشا غرغورة مانتا واسو أفجري حدي لك الجيدي حدي لسكو جيدي بواسو أفجري وحي نقدح فائدة سنة ينا وحوية وحان كدري وحي خير كجري الله نوسو هذا نري وحي خير نوو جري دانت ريرك أي كجري محان كولا داي ها إلهي بان udhiibnay marka waxa weeye gurgure maanta waxa weeyaan cadowgiisu fara badan yahay gurgure maanta inuu gacmahaas qabsanay wax la yiraahdo caalim badan iyo wax dudub la yiraahdo oo nala kala qaybiyo waxa weeye intii hore ha noogu ekaato waan dhammaystiranay ilaahay idankiisa wixii naga maqan anagoo gacan qud ah ayaan maxaan ku raay doonanayna meeshuu doonay ha joogo gurgure bari iyo garbeed oo qoyiyan koonfur waddanka dibadiisa waxa weeye maanta gurgure waa gurgure midnimo waxaan ku weynay kala tafaraaruq kuma helayno marka sidaa darteed waxaan leeyahay maanta annaga oo gurgura ayaa wax doonanayno annaga oo gurgura ayay wax naga maqan yihiin annaga oo midaysan ayaan ku wada dhaqaaqnay gacmo gurgura isqabsaday wixiina uu dhammaaday waan soo aftiray ilaahay dankiisa ilaahay baan la kaashanaynaa hadday dibad iyo waddanka gudihiisa ay tahayba waxa weeyaan wixii naga maqnaa ha wada raagsanno gacmaha isqabsadaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu arrimihii maantaan iskugu imanay beesha gurguree nabad baan ku dhammaynay nabadgelyo si fiican walaaltinimo iyo wadajir iyo midnimo iyo isku duubnaan tafaraaraq iyo kala qaadqaad wakhtigeegii ma joogno teennana maa waddan nabada dad nabad ah nolol wanaagsan baan dalkeennii iyo dalkeenniiba la rabnaa wixii naga maqan haqeennana inaan doonanno soo dhacsanno inaan isdullowno on iskala qaadqaadno on isquursanno maa